Asalaamu calaykum guys, waxaan rajeynaa inaad fiican tihiin aad nabad qabtaan. Okay, maanta waxa igu dhacday wax aad lala yaabo. Sababta mid walaasheeda aheeda maanta inta isoo wacday waxay igu dhahday niyow maanta ii imaw niyow inaan ku casuumaa rabaa camal ma jirto adi. Waa aaminay hay intaa aa ka ogolaaday haddana waxay soo jirtaba alaabtii aan kugu casuumi lahaa hor u keenso. Warciila ay qabtaa ku dhaah. Laakiin waxay kugu taalaa anna intaa qabta asil ay adi inay buskud ii sameysaa ku qasbay marka hadda buskida ii sameynaysaa saa aragtaan ala ay xafidee marka ana xitaa waa jeclaystay inaan barto sidii buskudka loo sameeyo xitaa waa ka codsada markaas waxay ku xijeysay kaamirada inaan qabto okay saad aragtaan hadda waxay halkaas ku dartay 5 xabo ukun ah ade inta doonto waa isticmaali kartaa laakiin iyada hadda 5 xabo ukun iyo sokor bakeeri sokor ah iyo waxay kaloo isticmaashay saliid saad aragtaan okay iyo waxay kaloo isticmaashay wax yar oo dhiga yara ah haddana ma aqaan sidee wax ka noqdeen sokorta ku yaraat camal ma is dhaade sokor kale ku darta ade hal bakeeri kale sokor ku dartay saad aragtaan kadibna way isku walaaqdo macnaha bismillaah magaca ilaahay ayaan ku bilaabaynaa sanadkan cusub anagoo asiga aan tala saaranayno ilaahayow nooga dhigsa ilaa uu sidaan ka noqdo waa walaajinay macnaha anaga waa kana sidaan noo noqdo waxaan ku darnay bakin anaga bakin aan dhahana kale idinku waxa dhahdeen idinka ogey haddana baash in la isku baday ma fiicna okay yaa la isku badin kaliya hal qaand isticmaal waxay kaloo isticmaashay caanaha caadiga xilwa waa taqaaniin saafila xilwa isticmaashay kaliya hal bakeeri ku dartay yani wax yar caanay qastay biyo ku dartay hal bakeeri camal ku dartay xoogaa baash barxay ka dhigaysaa saad aragtaan dadka qalab isticmaalaan qalab wax ku shiidan iidan qaande isticmaalo saafiye way dhibtay dhaaf saad aragtaan baad qaandada ku walaaqosaa waxay ku soo dartaa hal koob oo bur ah qaandada iyo dhan wayba dhigtaba gacan ay markaan la gashay ka waran faataala dheh ugu dambeyn baash sidaan ku soo baxday waa kan hadda anagoo iska faraxsan oo saan iskaaga faraxsayna hadan waxaan la soo sheegay aab inuu geeriyoodo Allah u naxariisto arinta marka u sheego marka walaashay isla markii way kacday hoosh intee ku joojisano isla markii waa soo baxnay marka hadda waxa uu sii soconaa aabo khabrigiisa labada khabrigiisa Allah u nuuriyo asxaabtidinkan aab igu soo duceeyo inuu ilaahay jannatul firdaws oo kabraabay inta dhimatana Allah u naxariisto hadda dhankan iyo waxa uu sii soconaa calamada uu sii soconaa hoosheen hadda inoo taale xitaa ma soo dhameysana ku leey iyadana ootin dhinacana iska fadhisa agtay fadhisa isku oonusa ka hor anna waxa taaganayay aabo geeriyooda ma soo laabanayo u duceey aamusa uurin camal war way maqli weysaade almuhiim way dulqaadan weyse ootinteed markay ugu badatay waxaaba go'aansado inaab iska celiyo iyadan aawado kadib waa isla markii waa soo baxay xaafada iyada u soo celiyay ugu dambeyn alxamdulillah waa soo baxnay xitaa si walba ay way oonusa iyada laakiin inaa ka farxiya isku day xitaa ano farxadeeda raadinayo ilaa amarkiis geelashaana iska arkayo maxaa la geelashaana isku tusina warnay maqlaway saxaabada taaganta geela ku jirta aabahina geelo murug mu kayso marka waxa dhacay aabo duco ugu baahan yahay saacadane ootin wax ay tarees malhana dhacday waa xaliwa ugu dambeyn saa u sheekaysaneen asxaabteeda guri la gaara waa u sheekeynay wax walba u sheegay laga ta ilaa ugu dambeyn ee ka farxaday marka waxa soo xasuusilaan waxa xasuustaa iyada markii la guursanay konton halaado geela laga dhigo bismillah horta ma jirtaa gabar Soomaali oo konton halaado geel laga dhigo mu maleynaa inay jirto iyada ugu horeyso walaashay marka adi arimahaas hore soo xasuusinaa idan jib nooc kale ab gelino waaba ka bixiyo arintii ahayd aab inuu geeriyooday waaba hilmaansiibo adi idan farxad iyadoo faraxsan guriga keena ku dhaa adana guri markaa keeno oo tinaba si bilawdo bis